Assalaamu calaykum kusoo dhawaada YouTube kanaalka wax kasta ka filo waqti dheer kadib isku soo noqod wanaagsan. Maanta waxaan idiin wadaa video faa'iido u leh ardayda doonaysa inay dalka dibadiisa gaar ahaan dalka Turkiga wax ku soo bartaan waliba qaab free ah. Ma rabtaa adigoo cidna u tagin qofna ay lacag ka qaadanin in aad Turkiga waxbarasho free ah ka heshid? Haa, waad rabtaa anaa og. Waadna helaysaa. Videogan haddii uu ku soo gaaro si fiican u daawo, subscribe saar, asxaabtaadana la wadaag si uu dad badan u gaaro ugana faa'iidaystaan. Bini'aadamku weligiis waxa uu u oomanaa cilmi iyo wax cusub inuu barto, taasoo sababi jirtay inuu wadooyin dheer ugu soo safro si uu wax u soo korsado, weliba inta ugu badan iyagoo lugeyn jiray. Laakiin safarkaas waxaa sare u qaaday tiknoolajiyadda iyo isgaarsiinta oo boqolkii sano ugu dambeysay horumar aad u ballaaran sameeyay. 2018 baaritaan la sameeyay waxaa soo baxday in 5 milyan oo arday ah wadamadoodii iyo waalidkoodii uga soo hayaameen in ay wax bartaan dhammaan dunida oo idil, iyagoo weliba cilmi baarayaashu ay sheegeen in sanada 2025 tiradan ay 10 milyan gaari doonto. sidoo kale ardayda kala duwan ee waxbarashada isugu imaanaya waxay yareynayaan isirnaceebka iyagoo sare u qaaday isdhexgalka bulshada. Turkiga waxa ay tilaabo u qaaday sanadii 2000 in ay ka mid noqoto wadamada soo dhaweynaya ardayda cilmi raadiska ah ee ka imaanaya dunida dacaladeeda. Sidaas darteed sanadii 2010 waxaa la furay Turkish Scholarship ama Turkey Bursary oo loogu talagalay ardayda aan wadanka u dhalan in looga caawiyo waxbarashada. Isla sanadkaasna waxaa soo dalbaday in ka badan 40,000 oo arday oo wadamo kala duwan ah. Turkish Scholarship ardayda waxay ka caawisaa waxbarasho, hooy, cunno, caafimaad, tikid go and back ah iyo weliba lacag la siinayo ardayga bil kasta. Min bilow ilaa dhamaad ardayga wax laga qaadayo oo lacag ah haba yaraateena ma jirto. Wax kasta waa free. Okay, maxay tahay Turkish Scholarship? Waa scholarship ay bixiso dawladda Turkiga oo ay ugu talagashay ardayda ajaanibta ah. Ardaydii ku guuleysatana waxa ay xaq u leeyihiin inay wax ku bartaan jaamacadaha dalka ugu fiican iyagoo weliba baranaya faculty-ga ay rabaan. Sidoo kale bachelor, master iyo PhD intaba waa ka helaysaa. Maxay bixisaa Turkish Scholarship? 1 boqolkiiba boqol waxbarasho free ah. 2 hooy iyo cunno free ah. 3 caafimaad free ah. 4 bil kasta oo ardayda kala duwan sida bachelor-ka $100, master-ka $150, PhD-da $150 oo lacag ah la siinayo. 5 hal ticket go and back oo free ah. 6 hal sano luqadda Turkishka oo free ah. 7 la talin joogto ah iyo seminaaro kala duwan oo ay ardaydu ku baran karaan xirfado ka duwan faculty-ga ay bartaan. Intaas iyo in ka badanba waa ay bixisaa Turkish Scholarship. yaa dalban kara ama codsan kara Turkish Scholarship? Waxaa dalban kara arday walba ee aan Turki ahayn. Waxaa jira shuruudo dhanka da'da ah oo ay qasab tahay in la buuxiyo. Shuruudahaas waxaa ka mid ah bachelor degree-ga ardayga waa inuuna ka weynaanin 21 sano. Master degree-ga ardayga waa inuuna ka weynaanin 30 sano. PhD-gana ardayga waa inuuna ka weynaanin 35 sano. Shuruudahan qof walba oo buuxiyo waxa uu xaq u yeelanayaa in uu dalbado oo uu weliba ku guuleysto. Sidee loo dalbadaa Turkish Scholarship? Dhammaan dalabka scholarship waxaa loo sameeyaa qaab online ah. Sidoo kale wixii warbixin iyo xilliga dalbashadana waxaad ka heli kartaa website-ka hay'adda. Qaybta hoose ayaana linkiga idinku reebi doonaa. Wadan kasta oo aad joogtid waad la socon kartaa wixii dhaqdhaqaaq ah iyadoo wixii shuruudo ama documents-ka laga rabana aad qaab online ahaan ku diri kartid. Sidee loo qiimeeyaa dalabka aad u dirtid Turkish Scholarship? Qiimeynta waxaa sameeya professor ka socda jaamacadda iyo mas'uuliyiinta dawladda. Sidaan ayayna wax u qiimeeyaan. 1 in uu ardaygu buuxiyo shuruudaha da'da iyo documents-ka loo diray. 2 inuu ardayga meesha ku cadeeyo faculty-ga iyo kulliyadda uu rabo inuu barto. 3 in ardayga shahaadadiisa dugsiga sare ayna ka hooseynin 70. qiimeyntaas kadib ardayga ka soo baxa shuruudaha laga rabo waxaa laga wacayaa interview-ga. Haddii ardayga imaan waayo xafiiska interview-ga lagu sameynayo, ardayga waxaa xaq loo siinayaa inuu qaab online ah uga qayb galo interview-ga.
interview shuruudaha laga rabo iyo waxa la weydiinayo ardayga videoga xiga ayaan idinkula wadaagi doonaa insha Allah sidoo kale sida loo dalbado qaab practic ahaan ayaan idinkula wadaagi doonaa qof kasta oo doonaya inuu ka faa'iideystana wixii warbixin ah oo dhan halkaan ayaan kula wadaagi doonaa waliba qaab free ah kaliya subscribe iyo in aad asxaabtaada la wadaagto isku day si uu dad badan u gaaro ugana faa'iideystaan adigana ajir ayaad ka helaysaa anigana faa'iido ayay tahay gambaleelka furo si aad ugu socotid videoga xiga mahadsanid